intaan hadda ka socota Soomaalida iyo Oromada waxaan maqlay laba cisho ka hor laakiin dhibku waa jiray bariga hore jiray laakiin tan waxa ka duwan tahay dhibkii hore hadda ka hor dhici jiray waxa isku dagaal jiray beero iyo ceelal biyo ayaa isku dagaal jiray laakiin tan dawladda Itoobiya ayaa ka dambayso anagu warkama haynay dawladda Itoobiya isku dirtay laakiin maxaa sababay dagaaladan waxa sababay dawladda Soomaalida ee kilalka Soomaalida baa inta yimaadaan dhul Oromo degan tahay oo tuulooyin yariisa intii wada dadka laayaan bay caalamka kilalka Soomaalida ee ka taagan marka dad badan maadaama laayay Oromadii niman kamid ah ayaa waxay dileen niman Soomaaliya oo aniga ku hadlay magaca community-ga oo cambaarinayo nimanka Oromada Soomaalida dilay marka waxa sababay dawladda Itoobiya waxay rabtaa inay attention-ka hadda Oromada ku hayso dhibka ku hayso Itoobiya inay u soo jeediso dhinaca Soomaalida Oromadu inay dad Soomaaliyeed oo tira inta leeg ay dilaan iyagoon waxba galabsanin say kula muuqata aad baan wax wahay Oromo inay dad Soomaaliyeed disho laakiin dil kala ka horeeyay 1600 marka every time dadka oo wax garadka ama ururada politiga haysto waxay dhahan Soomaalida cad lama nihin yaa dhibka loo geysan waa harsan ay barwa inta wax socotay hadda nimankii waxay sameeyeen waa niman oo laga dilay waayo maxalna cousin-kood iyo kuwa oo la dhasheen kuwaas refugee sameysteen inkastoo ka xunahay waxaan dharin nimankaas hala soo qabto geedna lagu xiro waad ogtahay dagaalkii waxa uu sii socdayaa ilaa magaalada Hargeysa duleedkeeda niman baa lagu dilay la sheegayo magaalada Boorama oo kale odayaashii baa ka hadlay oo si fiican dadka la hadlay iyo culimadii oo nabad ku baaqaya wali sidaas oo kale ma ka jirtaa dhinaca Oromada aad iyo aad magaalada Darraba Adama Adsaba Arsi meel walba xalay ilaa maanta waxa la sheegay shirkado ka dhacday Boorama ka dhacday oo gobonimada ahayd si oo hadleen amala ka dhacday dadkan Soomaalida cadowgeena maaha dadkaas dilay oo la cambaariyay hala soo qabtaa la dhahay oo lagu maqan yahay